waxaanu kasoo qayb qaadanay event ka dhacay dalka Jarmalka oo la yiraahdo Impulse for Investment. waxaa laga sheekeynaa sida loo maalgashado gaar ahaan cryptoda iyo tradingka iyo stock marketka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هو عمر محمد كناكينا ما تروحين مرتين شعيب إيدباك تلبط من وضوء قدرة حيلا بدو مشاهد الجودة بدونا وحنا كسر قيب قادمنا إيفنت كده عادة كجرمالك ولا يرادو Impulse for Investment. حلقة شكلنا سالو مالكشلو قارع عن كريبتودا iyo tradingka iyo stock marketka iyo immobiliarka soo real estate Soomaali soo taqaan dhulka soo qofku wuxuu maalgashan karayaa waqtigan uu kriisu jiro waqtigan uu jiro dhaqaale burburka adduunka laga cabsanayo wax walbana maciishadiina kor u qaaday sidoo qofku dhaqaalihiisa u kordhin karaya waxyaabo badan oo ka faa'iido baa jira sideed u samayn karaysaa mana hadda maanta tiraado waxaan ku noolaan karaa lacagta soo gashay dhaqaale ku noolaado nolosha ma dabari karaysid waxaa jira markaa wax badan oo ka faa'iido maanta waxyaalahaas la wadaagi doonaa marka koowaad ku maasanta ustaad kusoo dhawo kanaalkayga insha Allah kulli bulshada waxaan ka faa'iidnay iyo sidii wixii nagu soo kordhay baan la wadaagi doonaa kusoo dhawo أنا مستعمر مكلا حواي إن أقوي مع هذا كان جربك كاسة المجالات الدوسلدورف وحويان هو هاي أنت أدي أدو بنكسن قفكنا وحويان إنه تلعبه خلو قادو سيو مسحي سيو كوريو أدو ما حنكون كنا هاي information كو very important هاي قفكو إنه ماشي وكتوه مليون علم كنا قيا هاي إنه وقت جليو وقت وصهر مال وصهر يمادو وحكي فائدة صوته investment هو مهم سنما عن real estate investment كسميسي إنه وحكي له كسميسي إنه trade سميسي real investment وحويان إنه أضيف نختار investment كسميسي تاسع very important وأنا تاسع تانك الدولية أدينا أقول إنجليزي إن all the way from Oslo إلى صدر فاني معه سيدان برنامج كان دي واحد من فائدة أدينا هذا كلام هذا وحواي runtii wax badan oo ka faa'iidnay barnaamijkuna waxyaalaha ka helay wax weyn maasha Allah dadku waxa kan suurka guud ee maanta inaad arkaysaa laakiin shakhsi waxa garan kartaa inaad ka soo baxday kaliya isla ma soo bixin wax soo baxay habeenkii waxaan soo sheegay 10 habeenimo wuxuu soo baxay 12 habeen ayuu tirka jartay subaxdii wuxuu yimid Denmark maadaama diyaarad ma jiro maanta caawinta go'aansta bari soo bixi karayso inta ku dhaca iyo kalsoonida iyo inaad rabto noloshaada qof noqonaya update noqonaya bulshada wax soo kordhinay adigu soo kordhinay inaad isla habeenkii go'aan qaato subaxdii 6 subaxinta soo baxaa Denmark iyo mataqaana Jarmalka soo duusho oo reer ilaa 10 saac oo safar soo gasho waxa ku tusaysaa baahida iyo hangariga aad u qabtay inaad isbedelkaaga weyn sameynayso iyo jidkaaga waxa ku dadaalayso qofka aad maanta tahay ma noqoteen haddii intaas isbedelaysan han noqoto fitnesska han noqoto noloshada ganacsiga han noqoto investmentiga waxyaalaha kugu amaanaya weyn ka kala hatimay eventi ka soo reeyay bulshada ka dhacay safar baa soo gasho waxa ku tusaysaa shakhsiyan qofku dabeecad qof jecel cilmiga inuu sameeyo update gareeyo waxa ku tinay inta maanta cilmi badan ma ruuxna social media gana rabta isbedelina sameeyaan aan noqdaan ama jir ahaan aan noqdaan physical noqdaan ama dhaqaale ahaan aan noqdaan was one thing aad ku shaqeyn noloshada rules number 1 as markaas this rules kan wax ka soo sameeyay uu shaqeeyo rule number 1 waxa waaye qofku inuu leeyahay discipline hadduu discipline lahayn wax uu toosiyo nolosha malahan discipline kan waxa ka bilowdaa sanadada ka bilowda kama bilowdo meel kale iyo waxyaabo kale inaad samaysid maaha sanadada ka bilowda sanadada kula markaan leeyahay subaxii markaa soo toosto sanadada kasoo toostid adigu filaasho waa step kaas markaa samaysid wax kale way isku furayaan number 2 qofku inuu leeyahay training program waxa weeyaan qofku markuu physical active yahay mentally active waa yahay maxaa yeelay dhaqaatiirtu waxay ugu badan dhalinyarada dhaqaatiirtu waxa ugu badan ay kula taliyaan maxaa la jiray bulshada waxay tahay inay caafimaadkooda ilaaliyaan cunto fiican ay cunaan exercise ay sameeyaan khaasatan wadamadan ku noolnahay ee qurbaha ee maxaa la jiray qoraxda yar tahay vitamin D maqan yahay waxa waaye stress ku badan yahay qofku waa inuu yahay qof active ah oo maxaa la jiray discipline leh oo maxaa la jiray go'aan qaadan karo waa sida sheegtay waxa waaye waxaan ticket soo goostay ama soo baxay 12 iyo wixii ka dambeeyay aan go'aansaday ayaan xalay ticket soo goostay soo baxay inaan plan sameeyo wax fiican laakiin mararka qaar waxay noqonaysaa inaad go'aan qaadato at the right time inaad qaadato waa very important marka wax ii shaqeeyo waxa waaye number 1 waa discipline number 2 waxa waaye waa
training laftiisa discipline u baahan yahay marka waxaan dhihi karaa 1 iyo 2 iyo 3 wax soo geliya qofku inuu discipline waxyaalo badan oo ka hadlaya jira wax maanta ina cajibiyo kala qodobada kamid ahay in investor oo dhulka real estate gelinaya baa wuxuu noo soo wadaagay in dad macaamiisha qaar kamid ah 10 milyan baa kontaysi ku jirto waxa in 1 year gudahood buu minus $5 soo kala lacagtoo dhan buu buriyay waa intaas sanad gudahood buu buriyay sababta momentumkii uu lumiyay sababta wuxuu lumiyay baalkii disciplinkii waxyaalaha ka badan maanta laga hadlay inta badan waxaa kamid ah in aanad noqon qof wixii intuu bilaabay joojin aad noqon karayso discipline dad waxaa dhici karta oonay okay waxaan rabaa inaan 1 milyan sameeyo ama waxaan rabaa inaan intaasoo boqol sameeyo kabacdi markaasaan shaqada deynay waxaan rabaa inaan intaa gaadho kabacdi markaasaan noqonayo la tirada ama nasanaya uma baahnid wax in markaa gaadhin aad wixii joojiso waa inaad waxaan u samayso wax noloshaada qayb kamid inuu noqdo at the same time soo sheegto tusaale qurux badan soo sariirta markaad kasoo kacdo aad nadiifinayso maalin walba sariirtaad hagaajinayso dee intaad noosha hor dhan sariirta kasoo kacaysa waxay noqonaysaa discipline qaybtaada kamid haddii aad noqoto sportaad sameynaysana at the same time inuu noqdo waxaan wax qaybtaada kamid maxaa haddaba qaybtaada noqonaya ku investmentigaa sheegtay naftaada iskilinayso qofku inuu sug naftiisa iskili laba caafimaadkaaga inaad caafimaadkaaga dhisayso inaad active noqoto tana caafimaadkaaga u shaqaynayo dee wax ma gaari karayso waxaa kama mudin karaysa saddexaad noqonaysa aad noqonaysa inaad tahay qof hadafyada wax u diyaarsan okay disciplineki waad yeelatay waxaad noqotay sidoo kalena qof maxay ahayd hadaf baarkii maxay ahayd ismaalgeliyey waa maxay hadafkaaga maxaa isku maalgelinaysaa social mediaga maanta waad arkaysa dhalinteerada kulli madowda kan jeclaan lahaa kahor social inta haystee iyo social media dadkeena maanta intaasoo kun oo followers haysta laakiin dhaqaale badan ka sameeyay wax joogmeen aan waxba haysan 10,000 oo followers leh laakiin dhaqaale ka sameeyay inuu u dhigmay dadkeena caadi soo iyagu suuqa waxay u galeen inay market ka sameeyaan inay dhaqaale ka soo geliyaan ma viewers wax laga sameeyo isma waxa jira meelo badan laga sameyn karaa moota taban karaysa meelay maanta ka faa'iiday ee dhaca aan wuxuu ka shaqeysanay eventiga ka bacdina ee bulshada focus ka saartayta waxa ugu muhiimsan waxa waaye horta innaga waxaan haysanaa mididii waa haysanaa laakiin hilibkiisa lagu qashmo garanayo soomaalida markaa fiirisid everyone maanta waa caan dadku haysta is amazing dadkan caadiga ah ee bulshada adduunyada kale waxa lagu dagaalamaa waxa weeyaan imisa maxaa la dhihi jiray aada haysataa oo influence aad ku samayn kartaa dadka ku xidhan dadkeena markaa fiirisid wadankii oo kale everyone waa caan markaan dhahayo mididiina way haystaan hilibkiina qashmo garanayaan waxa weeyaan qof waxaa arkaysaa 200 300 400 haysto aan still garanaynin sida loo manage karo si looga faa'iidaysan karo waxaa kasoo faa'iiday marka waxaa kamid ahay how to monetize waxyaabahaas see maxaa la dhihi jiray laiskugu xiraa sidee looga faa'iidaystaa sidee wax kaga soo saari kartaa dadka kugu xiran sidee aygin wax uga faa'iidayn kartaa adigina uga faa'iidaysan kartaa unless keliya inaad sawir una iska soo geliso deedna iska socoto macluum isu kordhinayso marka inaad weygii aad uga faa'iidaysan lahaydna aad raadisid aygina uga faa'iidaysid taana waxaad ugu sameyn karaysaa markaad wax qiimo leh kusoo kordhayso wax value leh tusaale ahaan kale haddii aad maanta dadka waxa weeye dad ka qotiso ama qof aad caydo waxba kama sameyn karaysa dhaqaale inta badan waxa lagu helo waxa weeye comment ama wax aad faa'iido bulshada kusoo kordhinay baad u bixinaysaa laakiin haddii waxaad ku bixinayso yahay wax quality leh wax tayo leh hadduu yahay tusaale ahaan kale vlogs maanta samaysaa waxaa samaysaa inaad soo geliso sida qofka fitnesskiisa caafimaadkiisa u dhisay kujimsa qaybtan gudaheega adigina dhaqaale ka samayn karaysaa qofkii noloshiisa ku bedeli karaysaa see dhaqaale ku samayn karaysaa let's say waxaad furatay agency aad leedahay traveling sababta adduunyada wadamo badan ama balin badan waxaa jira youtuber le ka sheekeeya wadamada inay tegi karaya laakiin waa lagu bilaabnay agency intay leeyihin ay u qabilayan dadka kale ajaanibka in raadin oo ka dhaqaalo furto shirkad yidhahdo waxaan soo baraya maxaa dhaqaale saad u geli lahayd saad u safar u geli lahayd wadankii uga soo warramay at the same time qofkii jeclaan lahaa dhaqaalihi haysta inuu wadanka ku tago sidee qofka looga dhigi karaysa disista waa ficilka tusaale la disay waxaa ku fiican tahay qoraalka si wax loo qoraa ku fiican tahay comment baa dad walba ka bixisaa ama social media wax kusoo qortaa waxaa is weydiisaa okay qoraalkan aan ku fiicanahay sidee dhaqaale ugu samayn karay yaa u baahan qofkii dhibtan u baahan ee qoraalku dhib ka hayso dan waxaad tiraahdaa waxaan u baahanahay waxaan kuu qori doona wax u baahanta website-kan wax kugu qoray waxaan kugu soo qoraya baalka dan dhaqaaliga qofka sameynaya youtuber baa tahay waxaad ka hadashaa reaction reactionkaad ka hadasho ma meel ku khaasaa jira tusaalahaan kale weynkan badan financiga ku jira qaybtan dhaqaalaha isaa loo sameynay idalinton la wadaago interviews ama kala dadkaas sharafta leh wax gaadhay ee bulshada wax kusoo kordhinayna la sheekaysto dhada oo kasiid ku gaadhay meeshaada waxaan saan u leehayna noloshii waxaa bedelay eventiis sano kale dad sano kale markuu iisoo bandhigay fursado nolosheeda aan idhi wow this is working maantana waxaan noolahay waqti laba shay waa waqti attentionka dadku ku lacag yahay labo information uu qeyd cidda ka badan yahay
qof kasta information ku siin kara laakiin aad u baahan tahay the right person qofka information ka dhabta ku siinay so haddaan imaano gudihii dhexdeeda meel badan ma taabo social media ina qofku uu helo niche u qaado ka sameyn kara dhaqaale wixii ka bacna wixii wax qiimo ku soo kordhi discipline-kiisa iyo isagu baahiisa sameey qofku soo heli karaya dadkaas xaq u kala xiriiri kara ama meesha soo qoran karayo ma event ma buu waa maxay meelaha aad tiraahdo adigu aad isku kordhiso taas safarka soo kasho kale ma buugaag ku xidhan tahay jira waa maxay meelaha maanta shucay markaas leedahay wax raba qiimaha korna u sii qaado waa kiimada ka soo qaato kuwala horta schoolka markaa dhiganaysid waa kala baxaa qaar baa waxay doortaa finance doorto qaar baa engineering doorto qaar baa wax doorto number one horta waa inaad garanaysid waxaad doonayso waa maxay waxaan nolosha ka doonaya waxa weeyaan kayfa ama telegram ha noqoto ama maxaa la yidhi discord ha noqoto eventigo kale waa helaynaa mafahanta marka waxa weeyaan dadkeeda ayaa la saaxiibaa si aad u heshid the right maxaa la jiray go-aanka ugu fiican maxaa la jiray meesha ugu wanaagsan so dadka ugu hareereysan ayaa kaa dhigi karo qof horumaray kaana dhigi karo qof dib u dhacay waxyaalada badan aan aad ku jecel horta shakhsiyan waxaan qof maanta daa arko wax yacajibiye ama waxaan ka helay ama wax noloshada bedelay wax koowaad kusoo dhaca waysin dadka igu gaarsiin kareen si bulshada uga faa'iideyn kareen maybe ha noqoto muuqaalka maanta dhaqsanin dhanka gadaalo 12 saac ku jirin aan dubna bulshada la wadaago ama event la qaban qaabiyo kala noqoto muuqaal loo soo diro kala noqoto isla waxna waan ka helay si qofka loo gaarsiin karo ma baa ka bilaa damo aad bilowdo in aad wixii adigu aad jecesha dadka la wadaago damo aad soo jiidayso wax ku dhow ay fudaanayso xiriirkii qofka loo soo waxaan xiiseeyay ma ku arkaan ka hadlayso oo connection ku soo sameeyo dadka waxa ku sameeyay noloshaada inay qayb ka qaataan dadka ku xiran tahay shakhsiyadaad ku xiran tahay aad follow gareynayso social media ma moodaysid inay saameyn kugu leeyahay laakiin noloshaada hab dhaqankaaga qaabka sameynayso meesha socdo dhammaantood saameyn ku leeyahay damo qofaad ku xiran tahay dadka waxa ku sii kordhinaya qof kale ku keenay hadhow waxa ay adigu haysto waa qofka soo dhaqaaqay ama qofka soo sleeday meesha sameeyay inuu warka ku jiro maanta waxa jooga 200 qof ku dhow qof walba wuxuu rabay hadafku in qof kale soo baranay waa doorbuu rabaa soo tuxiyo qofkan lacag haddaan maalin uga baahdo halkaas qofkii baan haystaa haddii uga baahdo maanta ku jirto inoo crypto ku jira dad ku jirto kale qof raba inaad immobiliya ka gasho real estate dhulka soo loo iibso qof aad kula shaqeysaa haysata allah la taalo ku jira iibsaniya magacaawin kartaa meesha waxaad u baahan social management inaad hesho qofkii baad la xiriiraysaa meesha u samayn karaysaa so eventiyada sano kale waxa qofku fududeynaya inuu helo meel dad uu network iyo sidoo kale dad uu asxaab la noqdo oo isku vision yihiin oo meel weyn hadaf leh ay meel kale isku raaci kareen oo very fast doon samaynayso aad bay waqti ugu faraxsanahay la kulankaaga muuqaal badan insha Allah la soo daali doona dadka sidoo kale wuxuu soo wada ustaadku waxa weeyaan jarmalka magaalooyinka ugu muhiimsan 3 wadan soo tagna ka soo hadla mar walba si wax weyn soo wada waa lagu soo laamayaa waxa badan baa ka maqnaa YouTube marka aw train aan soo laabto oo train ma waa qasabina markaan soo laabto waa lagu baahan maadaama waxa weeyaan dad waxa jira aan meel gaari karin aad gaarsiinayso sidoo qofkii fog I love it qaabka soo duubto qaabka soo bandhigaysa bulshada aad ku dhiirigelinaysa dhalinteena aad kaalan jirkooda dhisan fiisigooga ay sameeyaan at the same time haddana meelihii taariikhiyaad samayn karayso bili-aadana we love waan jecelahay qasooska iyo qasooyinka iyo wax ka dambeeya adiguna keliya ma soo duubto meesha wax ka dhacaya taariikhda iyo wixii ka dhacay meesha waxay la soo wadaagaysaa iskii waa soo laamaya ustaadku شباب بيت هستند كلها مركي لبعض إن شاء الله وحوي وسيلة جبنا مقلبنا إن شاء الله صوت دونا هذا الناس اللي دا وشدينا هذا اللي نوع صوتها كنا كنا إن شاء الله نصابير تصدق على هذا اللي سبسكرايب سنة اللي نبدأ حتى تعشى مقالة تعشى هذه كلامنا كل صوت هذا سواء كان كومنت اللي يقولوا ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته